ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ayaa isku dhiibay dawladda Soomaaliya ciidamo gaaraya ilaa 12 askari oo ah kuwa Jubbaland ee ku sugnaa deegaanka Geedweyne ayaa ku biiray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan difaacyada degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo taliyaha ciidankan hogaaminayay ayaa lagu magacaabaa Axmed Macalin Cali Habarwa oo ku magac dheeraa Lillahi Taala ciidamadan oo horay uga gadooday xirada UK ayaa waxa deegaanka Geedweyne ka soo qaaday 3 gawaarida dagaalka oo ay leeyihiin ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan difaacyada Beled Xaawo waxaana iminka la geeyay taliska ciidamada xoogga dalka ee degmada Beled Xaawo halkaasi oo lagu hayo 12 askari ee ka tirsan ciidamada Jubbaland iyo hubkii ay wateen askarta soo goosatay ayaa u sheegtay ciidamada dawladda in ay u dul qaadan waayeen qaabka loola dhaqmayo ciidanka Jubbaland sida ay sheegeen iyo mushaar la'aanta muddada dheer haysata ciidamada maamulka Jubbaland oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka cabanayay inaanay helin xuquuqdooda muddo ka badan 6 bilood askartan ka tirsanaa ciidamada Jubbaland ee isku dhiibay dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay kamid ahaan doonaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee gobolka Gedo ayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada ka maqan gacanta dawladda Soomaaliya ee Jubbaland askartan si soo dhiibtay ayaa kamid noqonaya tiro ciidan ah oo horay uga soo goostay maamulka Jubbaland iskuna dhiibay dawladda Soomaaliya tan iyo markii ay dawladdu bilowday hawlgalka gobolka Gedo halkaasna ay ku daadgureysay ciidamadeeda gaarka ah ee Haramcad iyo Gorgor kuwaasi oo ku guuleystay in maamulka Jubbaland ay kala wareegaan deegaanada gobolkaasi maamulka uu hogaamiyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa in muddo ah ku rajo weynaa inuu dib u qabsado deegaanada gobolka Gedo ee ay dawladdu la wareegtay hase yeeshee dhawaan ayay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi oo uu kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ay si hoose u qireen in Jubbaland ay ku guul dareysatay dib u qabsashada deegaanada gobolka Gedo ee ay dawladdu kala wareegtay maamulka Jubbaland